khilaaf baana oo maalmahan ka taagnaa ceelasha magaalada Gabiley biyaha ka cabto ee ku yaal deegaanka Botor ayaa waxaa la soo afjaray khilaafkii ka taagnaa ceelashaasi khilaafkaasi oo ay soo afjareen cuqaasha maamulka Gabiley iyo laamaha amniga oo iskaashanaya ayaa waxa ugu horeyn halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay cuqaasha Gabiley Botoreed oo khilaaf yar ka dhacay waxa biyaha laga waayay magaaladii ku yaraadeen taasoo ilaahay mahadi ah in aanu shay khilaafka yaraabiye yaraantii iyo siirjiirkii naga dhabaaday maanta oo gabagabay yahay ceelashina ay noqdeen ceelal dawladeed oo ay la wareegtay dawladda hoose shaqaaluhuna ay yihiin shaqaale dawladeed oo ay dawladda hoose maamusho ceelka iyo shaqaalahaba wixii lagu heshiiyeyna la dhaqan geliyo maalinta ay soo baxaan nabadii khilaafka loo xidhay iyo gacanka hadalka iyagana maanta insha Allah in laga yaabo la soo daayo waxa ilaahay mahadiya wuxuu dhama naga dhabaadeen magaaladiina biyihii ay u baahnayd heshay lana helay ciladii iyo halkay biyo ku lumayeen wixiina la dhabeeyay alxamdulillah rabbil caalamiin saasi kula wareegeen oo wax daba oo hadalaho ka jira iyo wax ee sheegan karta iyo wax ay ka hadlaysa mid aan ahayn arrinta yare Botor ka dhacday maalintii dhaweyd khilaafka dadka loo xidhay si fiican oo gobonnimo leh ayay ku dhamaatay sida maxamed idin sheegay maanta wixii ka dambeeya biyaha Botoreed waxa ka mas'uula doosa ka mas'uula inuu ka heshiinay wax dhibaato oo dambe ka imanaysaana ma jirto hawshiina ay sidaa ku gabagabowdo shaqaaluhu waa shaqaale dawladeed dawladda hoose la shaqeeya iyaga ay ka amar qaadanayaan laga bilaabo maanta nin kaliya meel ka atooreynaya ma jiro go'aanka waanu wada gaadhnay waana ku daba joogi doonaa insha Allah ta'ala khilaafkii halkan biyaha ka dhacay hawshaasi waanu soo gabagabeynay wanaagsan waanu ka qaadanay halkii wixii qaldanaa waanu helay wixii xumaantu ka dhacaysana waanu helay ceelasha maamulkooga iyo lahaanshahooga iyo shaqadooda dawladda iyo iskale sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay laamaha amniga iyo maamulka Gabiley hawshii maanta dhultaan ka dhacday oo ceelashan biyaha ku saabsanayd hawl maamulun bay ahayd waxa ku soo gabagabay wanaag iyo isafgarad hawshaasna maamul degmo iyo gobol ahaan iyo odayaalba waa biyuhu waa wadnihiyo kulli mas'uul baa laga wadaya laakiin anagu waxa mar walba hawshaade toos u leh maamula maayirka magaalada iyo xildhibaanadiisa soo jeedinaya cid kasta oo hawshan runtii waxa nagala qabatay oo gacan naga siisay anagoo maamul iyo odayaalba aad baan uga mahad celinaya sida wanaagsan ee ay u shaqeeyaan runtii cid kasto hawshan wax ka qabatay aad baan uga mahad celinaynaa weynahan deegaankana awalba halkan kulli laf waxa la yiri dheri ninkii u dhow lafta kala baxa marka waxaanu idin leenahay aanu idin ku codsanaynaa inaad la shaqaysaan dawladda hoose waxaad loogu farxo maanta khilaafkii yaraa ee biyeed ee magaalada ka dhacay in si guul ah inoogu dhamaado oo la xaliyo warwar badan oo jiray biyo la'aan badan oo in badan soo jirtay ayaa waxaan maanta ku faraxsanahay in dawadeedii la helo waxaan u soo jeedinayaa bulshada halkan deegaankan in waxa weeyaan ay dawladda la shaqeeyaan khilaafkii saasoo ku dhamaaday waxa weeyaan siyaasad laga dhigay ugu faraxsanahay ka maamul ahaan inay khilaafkii yaraa carabiga labadiisa daanba istiida in khilaafkii yaraa inaga dhamaaday cid kaste oo hawsha ka qayb qaadatay jazakallahu khayr wayna runtii hawl qaranaynu gudaninay maanta waxa weeye ilaahay wuxuu inagu sameeyay inaynu halkan ka shaacino inaynu gabagabeynay inagoo gacmaha haysana deegaankii odayaashoodii iyo dawladdiiba khilaafkii yaraa ee farsamo ee muddaba ka jiray ceelasha biyaha Botoreed horeyn ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahad celinaynaa maalmaha barakaysan ee khayrka leh inuu ilaahay inuu waafajiyo inaynu gacanteena ku xalino iyadoo dhib badan ay dhicin dhibaatadii jirtay marka labaad runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka oo hawshan laf dhabar u ahaa inay wanaag ku dhamaato
waxaan aad ugu mahad celinaynaa maamul ahaan ciidanka nabadgelyada oo hawshaasi xalitaankeedii dhaawacyo culus ku soo gaadheen iyagu waa noloshii weeye in ay hadal galaan iyo in la siyaasadeeyo midna ma qurux badnaa waxaanu aad uga xunnahay waanu u mahad celinaynaa dadkii wanaaggaa ka qayb galay dadka sida qaldan u fikiraya ee arrintan inay buunbuuniyaan ay siyaasadeeyaan oo fursad siyaasadeed ka dayay waxaa noloshii ummaddu ku xidhan tahay waxaan leenahay iyagana ilaahay ha soo hadeeyey waxba ku fogaan mayno dad baa meelaha marya cascas la sugay aad baan uga xunnahay xisbiga waddani waa xisbi qaran danta qarankana waa la wada leeyahay mucaarid iyo muxaafid inay biyo gabilay hesho oo dadka reer Botoreed xaqooga helaan mucaarid iyo muxaafid badda in gacmaha la isu qabsado laakiin haddii marba meesha yar wax ka dhacaan mara casal la soo ordaan waa idin siyaasad xumo maanta annaga waajibkayga wuxuu ahaa waxa la yidhi wixii umasha u dana ayaa ilmahana u dana annagu mas'uuliyiin ahaan waajibkayga waxa weeye in dadka reer Gabiley iyo deegaanada kalena biyo helaan dadkii beerahooga ceelasha laga helayna ay xaqoogii helaan iyo wixii loogu dari karaba maanta waxa weeye hawshan intaanay dhicin waxaanu deegaanadan iyo deegaano lamida ugu maqnayn sidii mashaariic loogu heli lahaa waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Case